dowladda Sacuudiga ayaa markii ugu horeysay ka hadashay aqoonsi uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump u ballan qaaday Somaliland. Wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dalka Sacuudiga kana mid ah qoyska xukuma boqortooyada Sacuudi Arabiya, Amiir Cabdilcasiis bin Sacuud Al Sacuud, ayaa ka hadlay doorashadii dhawaan ka dhacday Somaliland iyo aqoonsiga la sheegay in Trump uu u fidinayo. Amiir Sacuud ayaa ammaanay dowladnimada Somaliland iyo dadaalkeeda aqoonsi raadinta. Amiir Cabdilcasiis bin Sacuud Al Sacuud oo qoraal ku baahiyay bartiisa X ama Twitter-ka isla markaana qoraalkiisa ciwaan uga dhigay Trump in uu aqoonsado Somaliland ayaa hadalkiisa ku bilaabay Somaliland oo ku dhawaaqday inay madaxbannaanideeda kala soo noqotay Soomaaliya 1991 ayaa dhawaan caleema saaray madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi kadib doorashooyin ay ku doonayso inay ku horumariso aqoonsi caalami ah. inkastoo Somaliland ay ka jirto dowlad xasilooni kana dhaceen doorashooyin dimuqraadi ah, haddana weli ma aqoonsanin midowga Afrika iyo qaramada midoobay, iyadoo Soomaaliyana ay u aragto qayb ka mid ah dhulkeeda. maamulka cusub ayaa doonaya inuu xoojiyo xiriirka dibadda iyo xoojinta madaxbannaanida, gaar ahaan kadib markii ay dhowaan heshiis ay la gashay Itoobiya kaasoo khuseeya gelitaanka badda. Somaliland waxay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Taiwan iyo Imaaraadka Carabta. Amiir Cabdilcasiis bin Sacuud Al Sacuud oo wasiirka arrimaha gudaha ka fadhiistay sanadkii 2017 xilligana saameyn siyaasadeed ku leh xukunka dalkiisa Sacuudiga, ayaa hadalka uu soo saaray ay muujinayaan in aqoonsiga Somaliland ay dareynayaan isla markaana isha ay ku hayaan dowladaha Khaliijka Carabtu.